sagaalkii Juun ayay ahayd markii war qoraal ah oo uu ku saxiixan yahay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Jamaal Maxamed ay soo shaac baxday iyadoo ay u muuqato warqadan inaan loogu talagelin warbaahinta. Warqadan ayaa nuxurkeedu ahaa in dowladda federaalka Soomaaliya aanay dib u cusboonaysiin karin heshiiskii New Deal-ka ee lagu saxiixay magaalada Brussels sanadkii 2013 una ogolaanayay Somaliland in si gaar ah loogu qoondeeyo kaalmada deeq bixiyayaasha. dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku doodaysaa in xilligan Soomaaliya ay yeelatay qorshe qaran heshiiskii 2013 uu waqtigiisii dhacay dalkana ay ku soo kordheen maamul goboleedyo oo ku doodaya in kaalmada deeq bixiyaasha iyana loo qoondeeyo si la mid ah Somaliland sida aan ka helay warar xogogaal ah oo wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah oo aan la xiriiray wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya oo aan khadka taleefanka kula xiriiray ayaa ka gaabsaday in wax waraysi ah oo arrintan ka bixiyo waxaase uu ii xaqiijiyay in warqadani ay ka soo baxday xafiis ka sokow in warqada lagu xusay in heshiiska sida gaarka ah deeqaha ugu ogolaanaya Somaliland inay dhaawacayso midnimada oo qoraalka lagu xusay ayaa waxa arrintan aan wax ka weydiiyay ayaan canshuur oo ah wakiilka Somaliland ee UK. wallahi daruntii ummadoo dhan fajacisay ku noqotay sida maaragtay ay deeq bixiyaashuba ku jawaabeen marka horeba baahidii jirtay in la kala saaro Soomaaliya iyo Somaliland baa meesha taala runta waxaana saldhig u ahaa in ay Soomaaliya ku jirto xaalad gargaar meesha ay Somaliland kaga jirto xaalad horumarineed marka waa iska nasiib daro iyadoo la rajeynayay in maxaa la yiraahdaa wada hadaladii bilowdaan oo runta caadifada iyo waxyaalaha laga baxo oo la garamo oo maaragtay la sii horumariyo un wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland in maaragtay marba arrin yar oo caadifada laakiin marka la eego waxa ay ku doodaysa dowladda Soomaaliya waxay tahay heshiiskan markii la galayay New Deal-ka ee Brussels Soomaaliya maamul kama jirin hadda 4 maamul ayaa ka jira marka soo lama dhigi karo dowladdu waxay ku doodaysaa waa wax la taaban kara maadaama maamulada laftirkooda ay dalbanayaan sidaan wararka qaar ku maqlaya in iyana loo sameeyo hanaan gaara oo ay kula macaamilaan bulshada caalamka iyo deeq bixiyaasha. wallahi taasi hadii ku andacoonto dowladda Soomaaliya waxa la micno tahay adigoo yiraahdo maqashaydii baan ilaalin kari waayay geela deriska nagu soo dara marka taasi maamul xumo iyo inay maxaa la yiraahdo dowladnimadii hana qaadi weydo bay ka turjumaysaa ay kama turjumayso Somaliland arrin shaqo leh kule ma aha in maamulada Soomaaliya dalbanayaan sidan iyo sidan runta marka Soomaaliya iyo Somaliland waxa ka dhaxeeya hal xiriir miis baa lagu wada doodaya marka in dooda laga gungaaro oo maxaa la yiraahdaa la hormariyo mooyaane dajid kale oo banaan oo inoo furan ma jirto marka marba taasina waba ka sii darantay marka tiraadid maamulkaygii baan maamuli kari waayay oo maxaa la yiraahdaa marka dariskan faragashanaya war qoraal ah oo la ii xaqiijiyay in isna uu ka soo baxay deeq bixiyaasha ayaa looga dalbaday dowladda federaalka Soomaaliya inay dib u cusboonaysiiso nidaamkii horey loogu heshiiyay ee Somaliland u ogolaanayay in si gaar ah wax loogu qoondeeyo arrimahan oo dhan ayaa waxa ay soo shaac bixinayaan in wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland ay god dheer ku sii dhici karaan haddii mar kale aan dib